waxaan u yeedhayaa duqa degmada Burco maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo maanta halkii magaalada Burco la joogo gudoomiye ku soo dhawow kelmadaada. halkan aynu joognaa waa gurigii madaxtooyada degmada Burco gobolka Togdheer. waxaynu isugu nimi xafladan maamuus aynu maamuusayno iyo taariikh ka sheekayn muddo caawa ay ku buuxdo 60 sannadood. maxaynu faa'iidnay, maxaynu khasaarnay, maxay naga lumay, maxaynu xaasila ayaynu caawa halkan wax ka mid iska xasuusin doonaa. waxaynoo jooga halkan caawa odayaashii maalintaa habeenkaa taagnaa calanka la saarayay ee goobjoogga ahaa. waxaa jooga raggii calankii dambena saaray calankaa caawayna dul babanay. xirsuqulaan baa halkan fadhiya, aarse xardiid baa fadhiya, muxuu ahaayey cabdullaahi maxamed cabdiraxmaan baa jooga, caaqil axmed sagal baa jooga, caaqil xasan dhuuxiiraa jooga. lama soo koobi karo ragga caawa halkan iyaga muuqmuuqanaya waa fara badan yihiin ee habeenkaa joogay. yaan la moodin ragga aan ka tegay inaan ogaan uga tegay ayaguna way ii joogaan. waxaan leenahay cimrigiina ilaahay raajiyey, cibaado saxana ha idinku daro. raggaasina way nooga warrami doonaan waxay soo joogeen. raggii ka dambeeyeen ayaguna goobjoog wey. dadweynaha reer Burco intaa haddaan halkaa ku dhaafo waxaan uga mahad celinayaa sidan quruxda badan ee agaasiman ee caawa loo soo camiray xafladan 60 guurada xornimadii qarankan Somaliland 1960kii laga qaatay gumaysigii la odhan jiray Ingiriiska. waxaa inaga yar xumaaday laakiin deris wanaagsan, deris aad iyo aad u wanaagsan oo aynaan ku noqon karaynin ayaynu ka helnay. hog laygu qaniinay ku sii hiradkiisa ka haari agtiisa ayaa ka hagaagsan ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ha siiye maxamed ibraahim warsame hadraawi. dhaxalkeenna iyo aayaheenna odayaasha waa maagna. waxaanu dhahnaa abataqan baa naga tuurteen, meelaan munaasib ahayn baana geyseen. ayaguna waxay yidhaahdaan idinkuba maanta waa haysataane bal ku faraadayga. maalmahan waxoogaa dunqalaaliya waa maqlaysaanoo aad mooddo shirkii Jabuuti in waxna ka dambeeyaan. ragna isguray. waxaa jirtaa marka abeesadii farta loo taagay fanaxay u boodday baa layidhi. haddii la yidhi wixii aan siyaasad ahayn ummaddu ma kala xidhna, awalba may kala xidhnayn. in si khaldan loo fahmaa sax ma. waxaa jira in la yidhi kooxo isboortiga iyo wixii la mida, abwaanada iyo wixii la mida, dadyowga heesa iyo wixii la mida. qaranka Somaliland iyo qaranka Soomaaliya iyo qaramada kaleba xuduud ma laha. haddana iska yaaca ma aha. degmadeeda Burco gobolka Togdheer ciidan weli fasaxnayna ma jirto, cid naga tagtayna ma jirto, ciidan ognahayna ma jirto. isla yaaci mayno maamulka iyo nidaamka iyo hoggaanka cid baa inoo haysa. laa yasluxu naasa fawda. ummaddu fawdana ku dhaqmi mayso. fawdadaa waxaa ku dhintay walaalaheenna aynu xagga siyaasadda iskaga soo horjeedno, laakiin xagga insaaniyadda iyo xagga islaamnimada iyo xagga soomaalinimada iyo luqadda aynu intaba wadaagno. ilaahay waxaynu uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu dhibaatada ka qaado. aynu ilaahay uga baryayn
ilaahay waxaynu uga baryaynaa dantooda inuu dantooda garansiiyo inuu ilaahay uga baryayno dadweynaha reer burco caawa waa habeen taariikh leh waa habeen ummad badani ku diirsatay waa habeen aakhirataankiina aynu iska luminay wixii caawa aynu helay 1960 odayaashu hadday yidhaahdeen bal idinkaba iyo idin dhaafin deena dhaafi mayso dhulkan iyo qarannimadan iyo xorriyaddan annaga waxay nagu joogtaa dhiig gobonnimada diraacow lama soo dilaaline intaan diric u koriyiyo digta geesigaygiyo nolol baan ku doorsaday 50 kun oo inan oo aan curan ayaa tan nagaga maqan inanu si sahla oo hawl yar ay iskaga sibiqdana waxaan diyaar u nahay maalintii dagaaladaasi ay soconayeen 20 jir baana waa ku jiray maantana da'deedu waa intii waa ka weyn tahay hadday tii soo noqoto maantana halkiina ka galaaban diyaaro waxaan u malaynayaa in dadku ay maanta waaya arag yihiin aan walaala noqono Jabuuti waa taa shan Soomaaliyeed baynu nahay NFD waa taa kilka shanaad waa kan Itoobiya lagu tirinaya war ma NFD la soo celiyo war ma Jabuuti la soo celiyo war ma NFD iyo kilka shanaad iyo Jabuuti la soo celiyo war Soomaaliya ma labadan jamhuuriyadooda la isku daray 60kiiba de hadii la leeyahay Jabuutina way soo noqonaysaa Ismaaciil Umar Geelaha loo sheeg oo arkaysan maalintii dhow isagana dhexdhexaadinayay isagana hal ila warday adna kan wax hayso Soomaali baad ahayd warday ha loo sheego Mustafa iyo qoladan kilika shanaad oo hal ila warday shantii Soomaaliyeed baa ka mid yihiin war idinkuna de kaalaya warday NFD ha loo sheego hal la yiraahdo warday Soomaali baa ahaydeen war annaga waxaan annaga nagu jira in la ka qodaya war waa maxay ilaahay subhanahu wa ta'ala walaaladayo ilaahay aqliga ha ku sugo ilaahay dantooda ha garansiiyo war miyaynu habaarnaa mise waynu ducaynaa waa u ducaynayna maxaynu leenahay ilaahay dhibta idinka saaro Soomaa ilaahay dhibta idinka saaro deris wanaagsan ilaahay idinka yeelo deris wanaagsan annagana ilaahay ha nooga kin yeelo dhammaan mar labaad dadweynaha reer Burco sharafta leh ee halkan nagu sharfay caawa ee baaqayagii ku yimi war waanu idin mahad celinaynaa dhammaantiin kun jeer baanu idin mahad celinaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh